magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waa gobol xeebeed waxaanu caan ku yahay isbedelka cimilada waana goob ganacsi oo ay ku badan yihiin goobaha dalxiiska magaalada Berbera waxa ku taala dekada weyn ee Berbera oo ay gacanta ku hayso shirkadda DP World haamaha kaydka shidaalka iyo badda dalxiiska ee Batalaale waxaana muddooyinkii u dambeeyay si weyn uga socday magaaladani horumar baaxad leh kaas oo soo jiitay indhaha bulshada magaalada Berbera waxa laga hirgeliyay laamiye casri ah kuwaas oo qayb ka ah bilicda iyo quruxda magaalada tartanka ganacsi ee ka socda magaaladani ayaa ah mid dhabaha u sii xaadaya horumarka ay ku talaabsatay Berberi ganacsatada iyo qurba joogta reer Somaliland ee ku soo dhiiraday horumarka magaalada Berbera ayaa waxay ka hirgeliyeen dhismayaal ganacsi iyo hoteelo oo Berbera u sahlay inay noqoto hoyga horumarka shirkadaha ajaanibka iyo maalgashiyaasha caalamiga ayaa ku soo dhiiraday Berbera kuna aaminay malaayiin hantiyeed oo ay gashadeen magaaladan maadaama ay tahay goob nabadgelyo oo martigelisay horumarka ka socda geeska Afrika haddaba haldoorka iyo dhalinyarada magaalada Berbera ayaa waxay ka dareen celiyeen horumarka baaxadda leh ee ka socda magaalada Berbera waxaan ka mid ahay maamulka hotelka Berbera Beach Hotel sadarka san halkan aan joogno ee bilicda quruxda badan leh kaliya marka laga yimaado dhinaca ganacsiga iyo in hotelku yahay hotel ganacsiga isla markaana aan ugu talagalay inaan ku soo dhaweyno cid kasta oo magaalada Berbera dalxiis timaado waxa uu qurux iyo bilic ku soo kordhiyay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil runtii waxa weeyaan marka la eego wadooyinka iyo waxa weeyaan kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka Saaxil sidoo kobcayo si la mid ah waxa uu kobcay dhinaca ganacsiga oo maanta adeerkasan hoteelo waaweyn goobo waaweyn oo ganacsi oo ku soo biiray gobolka Saaxil waxa kamid ah hotelkan aan joogo muuqaalkii badda oo ay dooniyihii iyo ay joogaan laashashkii hadda ay noqoto qaybtii hurdooyinka iyo adoo si kasta tan dhigo hotel caalami ah oo ka alloor hotel Berbera oo ka kooban saddex qaybood oo kala cuntadii supermarketkii iyo hurdadiiba waxaan magaalada ku soo kordhinay qaybo fara badan oo ay ka mid yihiin in marka ugu horsan buuxinay baahidii loo qabay hoteelada ka hotel ahaan waxaan qayb ka qaadanay bilicda magaalada bariga hore hoteelo badan baa jiray laakiin markii aan ku soo biirnay waxaan qayb ka noqday quruxdii iyo bilicda magaalada waxaan qayb ka noqonay shaqo abuurka waxa weeyaan dad badan baa noo shaqeeya shaqaale badan baan leenahay sidoo kale waxaan qayb ka noqon adeegyadii loo baahnaa gobolka oo qaybo badan bixinay anagoo ka kooban supermarket restaurant iyo hurdo hoteeladu waxa weeyaan waxay muhiim u yihiin gobolada waxay muhiim u yihiin meelaha ay ku yaalaan meel kasta oo hotel ku yaalo waxa bata dalxiiska loo qabo intii haddaan isku dayo maxay hayday su'aasha ah dhalinyarada magaalada Berbera door intee leeg bay ku leedahay horumarka magaalada kala duwan ee arrimaha dhaqaalaha caafimaadka siyaasadda waxbarashada kala duwan runtii horumarka iyo kobaca magaalada ka socda dhalinyaradu waxay ku leedahay rol aad iyo aad u weyn tusaale ahaan haddaan soo qaato markaan ka hadlayo dhinaca maxay hayday siyaasadda dhalinyarada magaalada Berbera runtii waxa la oran karaa ololihii u dambeeyay ama aynu galnay xisbiyadii tartankii ugu cusub ee u dambeeyay waxay ku lahaayeen door la xalli oo aan runtii la hakran karin runtii maamulka magaaladana runtii waxay ka yihiin kaalinta muhiima oo waxa ay hogaamiyaan degmada iyaga qorshaheeda dejiya iyaga arrimaheeda caafimaadka dhaqaalaha kala duwan ka shaqeeya ugu badan magaalada marka laga yimaado small businesska oo fara ku dirisa dadka dabada ku haya own risk ka waa dad waaweyn mana doonayaan inay kacaan ama koobac sameeyaan cid kale fursadana ma siinayaan waxaan jecelahay maadaama doorkii siyaasadda ka soo baxayaan dhalinyaradu maadaama doorkii maamul ee magaalada ka soo baxeen waa inay isu diyaariyaan si ay uga soo bixi lahayn doorkii dhaqaalaha qayb qaadanaa horumarada magaalada ka jira sibahan si gaar ah ma kan u tilmaamo ururka ayadhowr waa urur ka shaqeeya arrimaha bulshada magaalada Berbera waana urur inta ugu faraha badan ku foogan inuu caawiyo dadka danyarta qaybtaas waxay tahay waxay muujinaysaa in dadkii dhalinyarada magaaladu ay ka qayb qaataan horumarada ka jira magaalada Berbera waxaanu jirnaa muddo ku dhow 3 sano muddadaas 3 sano waxaan caawinay in ka badan dad ku dhow 1,000 qof gaadhaya qayb ka tahay kaalinta aanu kaga jirno dhalinyaraha way jiraan ururada magaalada Berbera waxay u soo jeestay tubtii horumarka degmada Berbera run ahaantii muddooyinkii u dambeeyay waxa kor u kacaya isku socodka jidadka laamiyada oo
si casriyeysan loo yigleelayo waa horumarada runtii taabagalka ee isku fududeynaya in bulshada isku socodkeeda isku fududaado run ahaantii jiilka dhalinyarada ama doorka dhalinyaro ee u kacday waqti xaadirkan deegaanka iyo gudaha degmadaba waa kuwa runtii mustaqbalkoodu yahay mid iftiimaya kamida dhalinyarada ka shaqeysa geed beeraca beer magaalada Berbera runtii waxaan qayb ka noqonay bilicda magaalada oo ay kamid tahay inaan wax ka beerno meelaha ugu muhiimsan magaalada ay leedahay sida masaajidada sidoo kale jaamacadaha waa Cabdirasaaq Qaasim jaamaca telefishinka Somali News magaalada Berbera.